بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ku soo booqday hoyga uu ka degan yahay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxaan aad u jeclaa in aan la wadaago dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed laba su'aal oo muhiim ah ku soo laabatay dad badan qulubtooda bal inuu inooga jawaabo su'aasha koowaad la weydiiyo mudane madaxweyne sida ka warqabna Soomaalida inta badan waa dad xamaasi ah waxbay xiiseeyaan muddo kadibna waxa laga yaabaa xiisii inuu dhamaado laakiin taageerada bulshada Soomaaliyeed ay ku taageersan tahay ilaa iyo imika waxba iskama bedelin ayaa la oran karaa marka la qiimeeyo daraasad la sameeyo adigu maxaa is leedahay hogaaminta intaas la eg maxaa ku kasbatay iyo Soomaalida in ay taageero joogto ku taageeraan bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah bacd waa mahadsantahay waana ka mahad celinaa taageeradaas waxaan is leeyahay waxaa ugu muhiimsan mashruuca ani aan ku jiray oo ay ugu barteen Soomaalida يا مشروع توس سياسي عن هاي مركا سومالدنا إلى حد وحلاقيها بعدين على سياسة إنه سنسيتيف كيه مشروع محكمة لها يوحي كدم به وهو كي مشروع جرجار بالشدة إلى هذا أنا هولها عن قفطه وحقيبك مشروع إلاس أنا من سنة إنه بالشدة حرير توصل اللي يهين ملاشة ظروفته يكونوا لي مربحان فلاهي تاس أي أساس واحد. واتهاي بنك كله وحتى إني سياسية ودنيا رنمنا السياسة بكسب قلة دنيا بدنا أي سياسة برتقى كودنا يجوا برن أي حسانية محكولة له دنيا ربنا أي سياسة بكسب قلة. وحنا سلاي هاي وح في عن أي سياسة قبل لابن أي قبل لابان أذيك قبل شنو قبل لابان وحيابا أي خبرات اللي إنه marka hore ay ku soo bandhigi karaan awoodooda wax qabad ay u suura gelinayso inay bulshada laftigeeda fahmaan bulshadu inay barato siyaasaddu waa meel aad u dhib badan waliba Soomaaliya gaar ahaan marka la fiirsho marka kuma talinayo aniga inuu dhalinyarada Soomaalida inay ka bilaabaan siyaasad ka bilaabaan shaqo waxa aad baad maasantahay labada su'aal ayaa muhiim ahayd waxay la tahay siyaasi dadka ay taageeraan ay tahay su'aalo badan siyaasiyiinta la weydiiyo iyo kuwa ka badan way maasantahay wata